الرحيم ciidanka BSF waxaa sharaf ah inay mar kasta sugaan amniga deegaanada Puntland sida aad ogtihiin ciidanka BSF sugidda amniga waxa uu weheliya ka qayb qaadashada horumarinta deegaanka iyo ka shaqeynta arrimaha bulshada ciidanka BSF waxay beereen in ka badan 49 kun oo geed bay beereen dhirayntaas oo ku aadanayd ama ku beega 2013 maanta oo ah sanad guradii 8aad ee dhirayntaas ay soconayso ciidanka BSF waxay ku beereen 4 gobol iyo 13 degmo ayay waxay ku beereen dhirtaas caqabadaha laga soo maray waxa kamid ah dadkii oran jiray yaan gurigayga hortiisa lagu beerin yaan wadada iga horeysa lagu beerin gaadiidkii jiiri jiray oo magaranaysaay burburi jiray dhirta kulli waxa la marayaa heer dadkii dhirta diidi jireen ay ku ganacsadaan oo goobo ganacsi ay ka dhigtaan gaadiidkii jiiri jirayna ay soo ribood gareeyaan oo ay iyagu dhisaan oo iyagu ay ka muujiyaan taxadar dheeraad waxa aragtaan oo mar walba maalmaha fasaxa iyo maalin kastaba aad aragtaan dhalinyaradii jaamacadaha dhiganaysay kuwii iskuulaadka oo sawirro farxad badan oo qurux badan ku galaya dhirta waxa kale oo war farxad leh noo ah in gobolada kale ee Puntland oo gobolka kale doonayo inuu ka dhirayn bato oo sidoo ugu beeri lahaa wadooyinka gobol kasta dhiraynta uu ka badsado dhirayntani ma aha mid mashruuc ama NGO lacag lagu doonayo waa mid iska wax u qabso muwaadinimo iyo ilaahay dartiis lagu qabanayo iyo wax qabad dhaxalgal ah oo sharaf badan u ah BSF meel kasta ay joogtaba maanta waxa la soo aftiray dafcadii jidka Sodonka ee Boosaaso oo lagu beeray 1500 geed aad ayaanu waxaanu rabnaa inaanu magaalada Boosaaso dhamaanteed inta wada ay leedahay aanu ka dhigno dhirayn waxa kale inayna ku aragtaan sida dhirtu u xiriirsan tahay ay wadada isu haysato oo qaabkaas indhihiina ayaa ku aragtaan wadada waxaan dadka farayaa shacabka in ay wadada ka durkaan si dhiraynta loogu beero in dhirtu ay guryaha waxyeelin qof walbana uu ogaado aadna inayna ku aragtaan sida magaalada loogu beeray sida quruxda badan ay dhirayntu u socoto waxaan halakan mar labaad iyo mar saddexaad uga soo jeedinayaa shacabka reer Puntland ama Soomaaliyaba sida ay ula shaqeeyaan ciidanka BSF waxa kale oo jira barnaamij 2018 dabayaaqadiisa aan bilownay oo ah geed iyo guri waxa isbeernay ilaa 300 oo guri ayaan waxaan ku beernay dhirtaas dadka anagu waxaanu sameeynaa dhirti siino dhoobadii lagu beeri lahaa gelitaankii dhirta geedka la gelinayay laakiin waxa laga rabaa reer kasta inay dhistaan meeshii geedka la gelin lahaa waraabsadaan waxaan u sheegayaa magaalada Boosaaso shacabka ku nool in arintaas 100% la isu taago la soo dhaweeyo ciidamada dhirta beeraya si qurux badan bay hadda u socotaa wadooyin badan oo magaalada ah oo guryaha hortooda waa laga beertay inaan la aaminin in dhirtu inay wax ku tadho qurux iyo sharaf baahan inay wax ay keenin dhibaato ah waxaan mar labaad iyo mar saddexaad shacabka Puntland ugu mahad celinaya sida quruxda badan ay ula shaqeeyaan ciidamada BSF meel kasta ay joogaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh